الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. waxaan u maleynayaa walaalayaal meel kastoo adduunka aad ka joogtaan inaad la socotaan waxa ka socda hadda Turkiya inqilaabka koox ka mid ah jeeshka ama ciidamadooda inay isku dayayaan inay ka tuuraan xukuumadii Rajab Tayyip Erdogan oo shacabku u doortay muddo 12 sano ka badan hadda xukuntay shacabkuna mar walba uu dooranay marka lagu loodin kari waayay xagga shacabka iyo arrinkii ah sanduuqyada in hadda inqilaab lagu tuuro cadowgooduna uu badan yahay. waxaan rabaa inaan iraahdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mulkiga iska leh cid doonana u dhiiba Rabbi subhanahu wa ta'ala waxayna saan waxa walaalaheen inaan u duceyno marka waxaan baaqan u dirayaa walaalahayga meel kasto ay joogtaan inaynu salaadna u tukanno Ilaahayna subhanahu wa ta'ala u barino. Nabiga alayhi salaam markii arrin adag ay timaado waxa la noo sheegay salaada ayuu maaragtay u carari jiray. Ilaahay baana subhanahu wa ta'ala wax walba gacanta ku haya marka inaynu salaadana tukanno Ilaahayna barino inuu walaalaheen reer Turkiya iyo madaxweynaha iyo dawladaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala guusha uu ka siiyo cadowga doonaya dadka muslimiinta inay kala gaabiyaan inay maaragtay dib u geystaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu fashiliyo kuwaas Ilaahayna subhanahu wa ta'ala dadka reer Turkiya walaalaheena muslimiinta iyo xukuumadooda iyo ra'iiskooda Rajab Tayyip Erdogan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala guusha siiyo ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryeena idinkuna meel kasto aad joogtaan Ilaahay u barya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u weydiiyo inuu Ilaahay nasriga iyo guusha uu siiyo dadka muslimiinta iyo sida jecel yihiin oo muuminiintu ay ku farxayaan. Jazakumullahu khairan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.